كان نبي عاي حكم سوى دلويا أما أنبياء عايو أما ملائكة عايو دقيقة دا سودين تكبح يا عذر دارنا ملي waa la soo qabtay ninkii caayay nabiga waana la maxkamadeynayaa oo hadda waxaa jira olole aad u xoogan oo ay wadaan Soomaalidu oo ah in degdeg maxkamad lagu soo saaro shakhsigii u gafay nabiga calayhi salaatu wasalaam ee Soomaaliga ahaa ee in muddo ah ay raadinayeen booliska dalkaasi iyo sidoo kale jaaliyada Soomaaliyeed maadaama sidaan barnaamijka ugu dambeeyay idinku cadeynay qaabka loo xiray iyo sidii suuro gelisay in gacanta lagu soo dhigo hadda waxaa la xaqiijiyay inuu ku jiro xabsiga iyadoo markaasi hadda ay baaris ku socoto dhawaan la wado markaasi in la soo taago maxkamadda haddaba waxaa jira aad u balaaran oo ay doonayaan Soomaalidu in shakhsigaani lagu fuliyo maadaama uu dambi weyn ka gala diinta Islaamka sidoo kalena uu gafay ee baweyne iyo sidoo kale subanaha calayhi salaatu wasalaam waxaana la isku haystaa qaabkii xadkan loogu oofi lahaa ma la dilayaa mase sidoo kale ciqaabo caadi ah ayaa la marsiinayaa olole xoogan ayaa socda ay Soomaalidu ama jaaliyada ka wada dalkaasi waxayna qorsheynayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan shakhsigan arintiisa lagu soo gabagabeeyo haddaba daawade waxaan xogtan kugu soo gudbin doonaa qaabka shakhsigan loo xiray iyo sidoo kale sida ay u dhacday arintan ah in la maxkamadeeyo waliba saacadaha soo socda iyadoona markaasi dadka Soomaaliyeed arintooda si sax ah loola wadaagi doono maxaa ka jira in la qorsheynayo in la dilo maadaama hadda uu ka badbaaday gacanta shacab Soomaaliyeed oo doonayay markaasi inay ka oofiyaan xadka uu ku haboonaa inta aan bilaabin muuqaalka oo xogta aan kula wadaagno daawada hadii ay tahay marka koobaad ha soo booqato channelkeena Xalana Media subscribe oo faraga balaalka si aad u daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena mahadsanid ninkii aan xalay warbixintiisa halkan idin kula wadaagnay ee caayay subanaha calayhi salaatu wasalaam waxa suuro gashay in gacanta lagu soo dhigo oo laamaha ammaanku in muddo ah raadinayeen isagoo una dhumaaleysi bilaabay sidoo kale xiray aaladii uu isticmaali jiray guud ahaan xitaa YouTube-ka waxa uu ka saaray ama uu haydgareeyay muuqaaladii markaasi la soo geli jiray halka si markaasi aan wax tixraac ah loogu sameeynin nasiib wanaag gacanta ayaa lagu soo dhigay oo hadda waa uu xiran yahay jaaliyada ayaana olole xoog la u gashay ee shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi waxaana suuro geliyay in markaasi muuqaaladiisa la qaado oo loo turjumo booliska loona sheego inuu u gafeeyo xabiibuna Muhammad calayhi salaatu wasalaam taa oo xukunkiisu yahay qofkii u gafa nabiga ama aflagaadeeya in markaasi la dilo oo dawlad islaami ah ay xukunkaasi ka rido culimada qaar ay leeyihiin hadii uu toobad keeno waa la cafinayaa halka kuwa kalena ay leeyihiin hadii uu toobad keeno xadkana waa laga oofinayaa asii ilaahay ayana u taala toobadiisa in laga aqbalana waa laga yaabaa laakiin waa qasab in xadkaasi laga oofiyo iyadoo arrimahaasi oo dhan isdabayaacayaan ninkana dal hormarsan hadda lagu xiray Soomaalidan ay ku guuleysatay in gacanta lagu soo dhigo sidoo kalena laga badbaadiyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo doonaysay inay dilaan hadda ugu dambeys jeelka ayuu yaalaa oo waa xiran yahay waxaana laga arisanayaa qaabka shakhsigan loola falgeli lahaa maadaama uu dambi aad u weyn uu ka galay diinta Islaamka iyo sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam qorshaha oo ah in markaasi Soomaalidu ay leedahay si degdeg ah ha lagu soo dhigo si degdeg ah maxkamad ha lagu saaro oo shakhsigan xadkiisa ama xukunkiisa la soo dejiyo ayaa wali si dardar leh uga socda magaalooyinka kala duwan ee dalka Turkiga iyadoo dhalinyaradu ay isku howlayaan markaasi sida ugu dhaqsiyaha badan arintan in lagu soo gabagabeeyo haddaba daawade waxaan kula wadaagayaa xogihii iyo arrimihii u dambeeyay iyo sidoo kale dadka caanka ah ee xogtan ka warhayay ee ka hadlay iyo culimada qaar waxa ay ka qabaan haddaba xukunka shakhsiga caayay nabiga diinta Islaamka maxay ka qabtaa culimo fara badan oo ka hadlay ayaan daawade warbixintan ku soo wadaagay kanoo kale Soomaaliyeena muuqaalkiisa soo qaadano soo dhigno baraha bulshada dambi bay nagu tahay fuyusraadisna way nagu tahay kanoo kale xukunkiisu ma aha in intii la soo qaado la yiraahdo nabiga Allah naga raali noqo kan nabiga caayay xukunkiisu waa dil weeyaan kanoo kale Soomaaliga ama muslimka codkiisa maqle muuqiisa yaqaan dalkiisa jooga magaaladiisa la jooga ayaa ku jannad tagaya oo shahiid ku noqonaya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanay laakiin inta la soo dhigay nabiga Allah naga raali noqo hebel baa nabiga caay anaga hore u soo dhigi jirno macna weyn sameyn weeydi way ku daydeen oo way ku daydeen oo way nagu dayeen oo way nagu dayeen oo way soo dhigeen laakiin kan xukunkiisa idin sheegaya xukunkiisu waa in intii la soo qabto madaxa laga gooyo lana dhaho nabiga Allah jacaylkaan uu qabna waa ka weeyaan agteeda xaqiisana laga ma maro waxaan sugaynaa insha Allah mid madaxa ka